xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxa ay sheegtay inay soo dhaweynayso warkii ka soo baxay golaha ammaanka ee jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa kii midowga Afrikana ay soo dhaweynayso qaybta ku saabsan magacaabidda ergeyga gaarka ee midowga Afrika ay u saarayaan xal u helidda arrinta doorashooyinka Soomaaliya laakiin dhinaca kale waxa ay ka hortimid qodobo ku jiray midowga Afrika go'aanadii ka soo baxay oo ay ka mid ahaayeen arrinta ku saabsan in ciidanka AMISOM ay la socdaan dhaqdhaqaaqa dawladda federaalka ciidankeeda amniga iyo dhinaca kale cambaaraynta go'aankii baarlamaanka qayb ka mid ah gaar ahaan golaha shacabku ay gaareen ee muddo 2 sano ay ugu kordhiyeen madaxtooyada iyo baarlamaanka wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya waxa uu sheegay in arrintaasi ka soo horjeedo sharciyada caalamiga ah waxaana uu sheegay in si naba aan lagu aqbali karin mana jira ayuu urur caalami oo sharciyan cambaarayn kara go'aan baarlamaan dal madax bannaan ay gaareen waxaana uu sheegay in taas ay ka hor imaanaysa dhammaan xeerarka golaha amniga iyo nabadda ee midowga Afrika iyo kuwa caalamiga ah ee Soomaaliya ay xubinta ka tahay dadka siyaasadda falanqeeya waxa ay durba saadaalinayaan in xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ay aqbashay arrinta ku saabsan baaqyada caalamiga ee ku saabsan in dib loo bilaabo wada xaajoodyada tubta doorashooyinka ee Soomaaliya dawladdu waxa ay sheegtay inay soo dhaweynayso gabi ahaanba warkii ka soo baxay golaha ammaanka ee jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa sida lagu xardhay qaraarka golaha ee xalay soo baxay waxa lagu cadeeyay inay doonayaan in la sii anbaqaado dhammaan dadaalada la xiriira nabadda iyo dib u heshiisiinta gaar ahaan tubta doorashooyinka waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in dhinacyada Soomaalidu ay yeeshaan wada xaajoodyo loogu gogol xaarayo doorashooyin loo dhan yahay si amniga ku dhaca isla markaana la isku raacsan yahay waxa ay sheegeen in tallaabo kasta oo ka hor imaanaysa nabadda iyo doorashooyinka oo si wanaagsan ku dhaca uu ka soo horjeedo golaha ammaanka ee jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa horey waxa ay u diideen dhammaan goluhu muddo kororsiga ay sameeyeen golaha shacabka ee Soomaaliya oo ay sheegeen inay tahay mid loo baahan yahay in dhinacyada siyaasaddu ay dib ugu laabtaan heshiiskii 17 Sebtembar oo jidka u furayay gabi ahaanba arrinta doorashooyinka ee Soomaaliya sida muuqata sidaas oo kale xukuumadda federaalku waxa ay soo dhaweysay qaraarka Mareykanka ee ku wajahan arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya warka Mareykanku waa mid iska cad marka laga hadlayo dhinaca siyaasadda dawladda federaalku si buuxda uga hor imaan karto ayay leeyihiin dadka oo dorasa siyaasaddu doonista Mareykanka ee ku wajahan Soomaaliya wasiirka warfaafintu ma uusan qarsan ama waqti kama qaadan inuu u mahad celiyo Mareykanka taageerada ay siiyaan Soomaaliya ee ku wajahan dhinacyada la dagaalanka argagixisada iyo horumarinta waxa uu sheegay in Soomaaliya ay soo dhaweynayso dal kasta oo qayb ka qaadanaya arrimaha dib u dhiska ee Soomaaliya waxay u muuqatay inay tahay fariin dawladda federaalku ay ka soo dalaacday halkii ay xilli hore u joogtay ahayd inaan waxba loo yeerin karin hadda waxa muuqata in dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu ay ku khasbanaan doonaan miiska wada xaajoodyada in dulba ugu laabto qodobka kale ee muhiimka muuqdana waxa uu muujinayaa in hadda dhinacyada oo dhan ay ku gowracnaan doonaan in la aqbalo tallaabo kasta oo uu keeno ergeyga gaarka ee midowga Afrika ay u magacaabi doonaan Soomaaliya qayb ahaan dawladda federaalku way soo dhaweysay magacaabidda ergeygan sida uu sheegay wasiirka warfaafinta dhinaca kale arrinta weyn ee ku hoos jirtay warka wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya oo ku dhawaaqay waa eedaynta Djibouti iyo Kenya oo sii korortay waxa uu sheegay in kursiga ay Djibouti ku fadhido ee gudoominta golaha amniga iyo nabadda ee midowga Afrika uu ahaa mid ay leedahay Soomaaliya balse jamhuuriyadda Djibouti ay Soomaaliya u dhaaftay waxa uu kale oo taabtay arrinta ku saabsan ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ama xoogga dalka in la socdo dhaqdhaqaaqooda kaas oo kamid ah qaraarka ka soo baxay midowga Afrika waxa uu si maldahan u sheegay in midowga Afrika ay doonayaan in balaayiin dollar ay ku qaataan magaca AMISOM aysan doonayn dib u dhiska ciidamada xoogga dalka waxa uu daliishaday xeerka 2568 ee ka soo baxay golaha ammaanka ee jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa sanadkan aynu ku jirno bishii Maarch aynu ka soo gudubnay kaas oo qeexaya waajibaadka ciidanka AMISOM waxaana aan ku jirin gabi ahaanba arrinta ku saabsan AMISOM inay kor joogtayso mas'uuliyadda amni ee Soomaaliya gaar ahaanna midda ciidamada xoogga dalka waxa uu sheegay oo kale in uu ka hor imaanayo la wareegidda hawlaha nabad ilaalinta ee Soomaaliya iyo amnigaba oo ay wada jir bishii February ee sanadkan u saxiixeen xukuumadda iyo waliba sidoo kale hawlgalka AMISOM shanta dal ee ciidamadu ka joogaan Soomaaliya waxa ay qaateen intii hawlgalkan ay joogeen 14 sano lacag ka badan 6 bilyan oo dollar oo ah mushaaraadka ciidamada kuma jiraan saadka iyo sidoo kale magdhowga askarta uga dhimatay Soomaaliya waa lacag lagu dhisi karo dawlado waaweyn iyo awood xoogan oo ciidan marka la eego lacagta faraha badan ee mushaarahaanta ugu baxday hawlgalka midowga Afrika ee AMISOM hogaamiyaasha Soomaalidu kuma baraarugsana sida muuqata waxa ay tahay lacagta bilaayiinka dollara in loo maareeyo ee ku wajahan xaaladda Soomaaliya
waa lacag sida muuqata lagu qori doono Soomaaliya oo ah mid deeq ahaan ay u siisay beesha caalamku waxaana ay noqon doontaa lacagta deynta ah ee lagu leeyahay Soomaaliya qayb ka mid ah marka la isku soo xooriyo warka dawladda federaalku waxa uu ku dhan yahay in ay aqbali doonto in miiska wada xaajoodyada la isugu yimaado laga wada hadlo doorashada ila diblomaasiyadeedna waxa ay durba cadeynayaan in la aqbali doono tallaabo kasta oo doorashadu ay ku hirgeli doonto 6 bilood ee soo socda ayaa laga shaqeyn doonaa ay leeyihiin arinta doorashooyinka ma nooc cusub ayaa la qaadan doonaa mise 17 Sebtembar heshiiskii baarlamaanku ay meel mariyeen ayaa noqon doona kan saxda ee mar kale lagu shaqeeyo Somali